carabta haddii ay goosato qayb ka mid ah dhulka daanta galbeed. sidaasi waxaa wargeyska ugu caansan Israa'iil maanta ku qoray safiir u dhashay dalka Imaaraadka Carabta. qaar ka mid ah saraakiisha Israa'iil ayaa ku gacan saydhay guuxa ah in ku darsashada qayb ka mid ah daanta galbeed ay hoos u dhigi doonto isu soo dhawaanshaha ay la sameynayaan qaar ka mid ah dalalka Carbeed, gaar ahaan kuwa khaliijka oo Israa'iil ay wadaagaan walaaca laga qabo Iiraan. hase yeeshee codsi naadir ah oo sarkaal Carabeed uu u diro shacabka Israa'iil ayaa safiirka Imaaraadka ee Washington Yusuf al-Otaiba waxa uu sheegay in tallaabadani ay noqon doonto la wareegis sharci darro ah oo lagu sameeyo dhul ay Falastiin doonayso in ay dal ka dhigato. Israa'iil wax xiriir diblomaasiyad ah lama laha dalalka khaliijka, hase yeeshee waxay wadaagaan walaaca ay ka qabaan saameynta Iiraan ee gobolka, taasi oo keentay inuu soo noolaado xiriir kooban oo ay yeeshaan. bishii May, shirkadaha diyaaradaha ee fadhigeedu yahay Abu Dhabi ayaa duulimaadkii ugu horreeyay inta la og yahay ku tagtay Israa'iil iyada oo gargaar loogu talagalay cudurka COVID-19 u sida dadka reer Falastiin. Masar iyo Jordan ayaa ah laba dal oo Carbeed ee kaliya ee xiriirka la leh Israa'iil. dowladda Israa'iil ayaa damacsan in ay ka wada bisha July ee foodan ugu soo haysa ay bilowdo ka doodista qorshe ay ku goosanayso qayb ka mid ah dhulka daanta galbeed ee arlada reer Falastiin.